subax wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan u diyaar garooba wararkeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka sirta wararka waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegantahay 26 Febraayo 2023 wararkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxa qaybka dagaalkii ugu cuslaa oo saaki mar kale ka soconaya magaalada Laascaanood ciidanka Soomaaliland oo isku day ugu dambeeyay sameynaya qabsashada magaalada iyo xogta Laascaanood ee ku soo gudbin doonaan sidoo kale ciidanka Soomaaliland oo laba daran mid doora haysata iyo ciidamada oo lumiyay difaacyada ugu waaweyn ee Laascaanood gaaraan aaga Gooja Cad iyo xaalad adag oo wajahayaan ciidanka Soomaaliland xilli ciidamada Soomaaliland dib kaga baxeen dhufaysidii ugu waaweyn ee Laascaanood xaqiiqooyin arrimahan ku saabsan ayaan ku soo gudbin doonaa al-shabaab oo xanabaad ku soo rogtay hogaamiyaal sarsare isla kooxda ka tirsan kuwaas oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali xilli khilaafka ka dhaxay kooxda al-shabaab oo u muuqda mid sii xoogeysanaya xubnaha xayiraadda lagu soo rogay ayaan ku soo gudbin doonaa sidoo kale xubno ka mid ah al-shabaab iyo hubkooda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho faahfaahinta xogtan oo dhameystiran oo kula wadaagi doonaa waxa kale oo aan ka marnay saaxiibayaal dawladda Djibouti oo ku dheeray goordhow war ka soo saartay xaaladda Laascaanood madaxweynaha Soomaaliya oo magaalada Dubai u jooga dhaqaale inuu u helo askarta lagu soo tababaray Eritrea iyo xaalad amni xumo oo ka jirta Muqdisho qodobadani kuba kale ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena saaxiibayaal qayb ka noqon daawadayaasheena ku xiran channelkeena YouTube-ka sirta wararka calaamada guduudan ee ku muuqata subscribe noo dhig gambaleelkana taabo nagu soo biir waxay ka dhigan tahay inaad qayb ka noqoto daawadayaasheena channelkeena YouTube-ka sirta wararka soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilaabay Laascaanood dagaal culus ayaa ka soconaya magaaladaasi iyadoo hubka culus la isku adeegsanayo wararkii ugu dambeeyay magaalada ayaa sheegaya in dagaalkii ugu xoogganaa oo ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidanka Soomaaliland ayaa sameynaya isku day ugu dambeeyay ay rabaan inay ku qabsadaan magaalada Laascaanood iyadoo saddex jiho ay ka soo weerareen magaalada xaaladda Laascaanood ayaa u muuqata hadda mid aad u xooggan waxayna wararku sheegayaan in dagaalkan uu yahay kii ugu xoogganaa ee mar kala dhacaya ciidanka Soomaaliland ayaa shalay lumiyay magaalooyin waaweyn oo laga qabsaday oo gacan ku hayntooda ka baxay wararka saaka ka imaanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in mar kale dagaal culus oo ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalkan ayaa u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka goobjoogayaal ayaana inoo warramay waxayna sheegeen in dagaalku yahay kii ugu cuslaa oo ka soconaya saaka galbeedka magaalada Laascaanood waxaana wararku sheegayaan in ciidanka Soomaaliland saaka ay sameynayaan isku daygii ugu weynaa oo ay rabaan in dib ugu qabsadaan deegaanada iyo waliba saldhigyada ciidanka Soomaaliland ay shalay ay lumiyeen warar ayaa sheegaya in dagaalka hadda xoogiisu ka soconaya galbeedka magaalada Laascaanood ayaana waxa soo gaaraya gurmadyo xoog leh oo dhinacyada dagaalamaya ciidanka Soomaaliland ayaa la sheegay in saakida hore weerar ay ka soo qaadeen dhanka galbeedka magaalada waxaana ka dhashay khasaare isugu jirta dhimasho dhaawac iyo waliba sidoo kale burbur xoog leh oo magaalada laga dareemayo sidoo kale ciidamada Soomaaliland ayaa la sheegay in xaafadaha Laascaanood ay geysay xaafadaha Laascaanood ay ka geysteen duqeymo aan loo meeldiyin duqeyntan tan iyo xalay ay ku socotay xaafado kamid ah magaalada Laascaanood dagaalka iyo duqeynta oo galay toddobaadkii saddexaad dhamaadkiisa sii maraya ayaa sababay dhimashada dhaawaca burburka iyo waliba barakaca dadka rayidka ee reer Laascaanood hase yeeshee dagaalka ka soconaya Laascaanood ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen tani markuu bilowday dagaalka Laascaanood dadka ku dhintay hadda kor u dhaafayaan ilaa 400 oo qof sida lagu xusay warbixintii ugu dambeysay dadka ku dhaawacmay ayaa hadda kor u dhaafaya ilaa 1000 ruux sida ay ku waramayaan warbixinadii ugu dambeeyay hay'adaha gargaarku ay soo saareen dadka dhintay kuwa dhaawacmay ayaa soo badan dadka rayidka ee reer Laascaanood ee halkaasi ku nool ah iyo waliba dhinacyada dagaalamay haddaba marka laga soo tago galbeedka magaalada oo dagaalkii ugu xoogganaa saaki ka soconaya maxaa kale oo soo kordhay ciidanka Soomaaliland ayaa la soo warinaya inay dib uga baxeen difaacyadii waaweyn ee Laascaanood ee ka joogeen oo asaldhigyada ugu muhiimsanaa iyadoo aan ilaa hadda la ogeyn sababta qasabtay hase yeeshee waxaa muuqanaysa in awood military loogu taal roonade warka laga helayo gobolka Sool ayaa sheegaya in xaalad aad u adag ay ka jirto oo deegaanada qaarkoodna laga dareemayo daryanka hub culus oo dhinacyada isweydaarsanayaan dagaalka culus oo galay maalintii 22aad ayaa dhinacyada isweydaarsanayeen hubka aad u waaweyn ila wareedo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in deganaanshaha
meelaha qaar ka jira ka sokow galbeedka magaaladu saakii xabad ka socto kadib se waxa la sheegay dib u gurasho xoogan inay sameeyeen ciidanka Somaliland oo ku sugnaa magaalada Laascaanood qayb ka mid ah oo ay dib kaga gurteen ciidamada militariga Somaliland ayaa lagu soo waramayaa inay xalay iskaga baxeen inta badan goobihii difaacyada ahaa ee kaga joogan Laascaanood waxaana la soo warinayay ciidamada inay gaareen deegaano cusub oo ka baxsan magaalada meelaha ay ka baxeen ciidanka Somaliland waxa qaybka guriga gobolka Sool oo ay saaka ku waabariisteen dadka deegaanka ee reer Laascaanood sida ay muujinayaan muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada deegaankan dadka deegaanka ayaa aad ugu geedaamay goobihi ay ka baxeen ciidanka Somaliland oo ay ku jiraan guri saldhigyo ciidan iyo goobo kale oo calanka Somaliland ka tagnaa oo guud ahaanba dhulka la dhigay oo lagu bedelay calanka buluuga ee Soomaaliya sababta ciidanka Somaliland ugu baxeen difaacyada waxa lagu micnayaa inay tahay laba arin midkood ah labada arin waxay kaliin koow dib u gurasho xeelad dagaal iyo waliba inay isku dayeen in mar kale duulaan culus ay ku soo qaadaan Laascaanood laba in gabi ahaanba ay qaateen baaqyada caalamiga ah ee waliba cadaadiska beesha caalamka ee ku qasabtay ciidanka Somaliland in xabadda joojiyaan in iskaga soo baxaan gobolka Sool sida muuqata hadda guud ahaanba Sool ciidanka Somaliland ayaa gabaabsi ka sii maraya xaaladda Laascaanood oo maalmihii dambe aad u cakiran xaaladda ayaa la soo sheegay saakiisa inay qaybo kamid ah ay deegaanka qaybana ay wali xabad ka dhacayso dagaalkii ugu xooganaa ee dhaxmaray dhinacyada ayaa la sheegay inay sababtay dhimasho iyo dhaawac ciidanka Somaliland ayaa hadda dib u gurasho baaxad weyn sameeyay iyadoo saraakiisha militariga aysan ilaa hadda sababta qasabtay inay ciidanku ay dib u gurasho ay sameeyaan laakiin xubnaha saraakiisha jabhadda ACC waxay sheegeen in awood militari ay ku muquuniyeen wararka Laascaanood saaxiibil wuxuu ku soo kordhaa wararkeena kale aan ku faafahin doonaa أنا قد بقدر كلا وركنا الصباح يكون جراء الشباب يا حبنا أيها كم ده أو جمياله أو ليه يكون جراء الصومالية الجانب واحد يكسر رجال عنقبتين بحد وين تن يوحي كدم بيجبك كواحد الشباب سوق عليه هالقلادة كذا كايد لك كسرانية وحا أدو حوجيسي كلا عرفت دوبنا شها يقلاف كلا شكي سوق كلا نحق عليه كواحد الشباب دولة الفترة الكعية مركل الشاعسي حقو يفاهين ديرادا أو كوسابسن إنه هرجويال daasi daacadu waa hadda la go'doomiyay mahad karatay oo ay sheegtay inuu ka faa'iideystay xaaladda caafimaad darrada ah ee soo wajahday hogaamiyaha kooxda al-shabaab Axmed Diiri ayaa la sheegay inuu qaaday tallaabooyin waaweyn iyadoo hadda u muuqato in kooxda al-shabaab dhaxdooda uu soo kala dhaxgalay khilaafkii ugu weynaa iyo kala aragti duwanaansho horjoogayaasha la go'doonka ku jira waxay isugu jiraan ajaanib iyo Soomaali waxaana horjoogayaashan qayb ka ah Xasan Afgooye kaas oo la sheegay in xaafado kamid ah degmada Afgooye oo ku dhumaaleysan jiray horjoogahan ayaa la sheegay inka dhaqaalaha oo kooxda al-shabaab u qaabilsanaa oo qaybkeeda dadka hadda go'doonka ku jira oo waxana lagu go'doomiyay degmada Jilib ee gobolkaas Jubbada Dhexe oo sheegay inuusan ka soo bixi karin Xasan Afgooye ayaa kamid ah dadka aad ugu dhawaa hogaamiyihii shabaabka ee hadda xanuunsanaya sidoo kale wuxuu qayb ka ah shakhsiga aad ugu dhawaa hogaamiyihii la qaadajiyay Axmed Cabdi Maxamuud Gudane oo la dilay waxaana la sheegay in xubno kale dadka kale la go'doomiyay ay ku jiraan xubno ajaaniba hogaamiyahan lagu magacaabo Farxaan Kaahin oo sana ka soo jeeda degmada Cabud Waaqi gobolkaasi Galgaduud ayaa hore asna qayb ka dadka go'doominta la geliyay Farxaan ayaa al-shabaab kamid ah xubnaha ugu firfircoonaa horjoogayaasha ama hogaamiyaasha kale ee kooxda al-shabaab hadda go'doonka ku jira waxa kale qayb ka Nuur Dheere kaas oo sana ka soo jeeda degmada Bacadweyn isla gobolkaas Mudug wuxuuna go'doon ku yahay deegaan lagu magacaabo Kuunya Baro oo Shabeellaha Hoose halkaas oo kooxda ay ku go'doomisay laguna ilaalinayo horjooga Ismaaciil Cusable oo asna ka soo jeeda degmada Cadaado oo kol hore al-shabaab qayb ka ah madaxii dilalka deegaanada soo qabilsanaa ayaa asna qayb ka dadka hadda aan dhaafi karin Jubbada Dhexe oo go'doonka ku jira marka laga soo tago hogaamiyaasha Soomaalida waxa jira hogaamiyaal kale ajaaniba oo ina lagu go'doomiyay waxaana qayb ka hogaamiye lagu magacaabo Muuse Al-Muhaajiri kaas oo ka soo jeeda magaalada Mombasa ee wadankaasi Kenya waa muwaadin Kenyana waxaana la sheegay inuu ku xaniban yahay gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe oo ay kooxdu hadda haysto uusan dhaafi karin marka laga soo tago hogaamiyaal waaweyn oo ayna qarkood ku xaniman gobolka Bay
baay marka la tago waxa ku xaniman nin lagu magacaabo macalin Jeenani oo ka soo jeeda deegaanka lagu magacaabo Xawaad Barbari oo hoosata gobolka baay isla markaana kooxda al-shabaab deegaanadaas u qaabilsanaa dhammaan horjoogayaashan marka la isku geeyo ajaanibta iyo Soomaalida oo door weyn ku lahaa ayaa la sheegay in khilaaf xoog leh kala dhaxeeyo Mahad Karatay oo agaasimo hogaamiye ku xigeenka kooxdaasi maadaama hogaamiye kooxda uu xanuunsanayo Mahad Karatay ayaa la sheegay in awoodda kooxda hadda asaga loo wareegay xubnahaasna uu cunuqabatayn xayraad ku soo rogay maadaama khilaaf shakhsi uu kala dhaxeeyay al-shabaab ayaa si weyn ugu kala qaybsamay dagaalka dawladda ay kula jirto iyo waliba sidoo kale falcelinta dagaalkaas dhinaca kale xubno ka tirsan kooxda al-shabaab iyo hubkooda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho howlgal ay booliisku ay sameeyeen faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxay howlgal xalay ciidanka booliisku ay ka sameeyeen degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaana lagu soo qabtay koox ka mid ah al-shabaab iyo macal hubkooda qoraal ka soo baxay taliska booliiska gobolka Banaadir waxa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ay soo qabteen ilaa 3 nin oo ka tirsan al-shabaab xilli ay ku howlanayeen falal amni darro oo ay ka geystaan deegaanada ka mid ah degmada Daynile booliisku waxay sheegeen xubnaha la soo qabtay maxkamad la horgeyn doono sidoo kale wuxuu booliisku shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigan hubkii ay wateen raggan iyo mooto bajaaj isticmaalayeen xilliga la soo qabanayay taliyaha ayaa intaas ku direen raggaas ay haatan ku jiraan gacanta dawladda isla markaana loo gudbin doono maxkamad loogu talagalay si talaabo waafaqsan sharciga looga qaado wada mooto bajaajla ayaa ku jira xitaa dadka booliisku ay soo qabteen waxa kale oo ay booliisku ay sheegeen in si wadi doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka iyo kuwa lagu la dagaalamaya burcadda iyo ciyaal weerarada qamiistii la soo dhaafay yahay markii booliiska gobolka Banaadir oo hub iyo shabakad ka tirsan al-shabaab ay ku soo bandhigeen saldhigga degmada Hodan si kastaba kooxda al-shabaab ayaa haatan culays xoog saartay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ay kooxdu rabto in weerar ay ka geysato dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta u tagay sidii ciidamada Eritrea lagu soo tababaray ee gaaraya 5700 loo heli lahaa mushaaraadkooda howlgalka ka dhanka al-shabaab ayaa hadda hakad ku jira sababta ugu weyn ee howlgalka hakadka u galay ayaa lagu qeexay inay tahay in ciidanka Eritrea oo la rabay in qayb ka noqdaan duulaanka lagu qabsanayo Ceelbuur Galhareeri iyo deegaanada kale ee dhaca gobolkaas Mudug iyo Galgaduud oo la rabay in ciidanka Eritrea loo isticmaalo laakiin ciidamada Eritrea laga keenay ee dalka ku sugan ayaa la sheegay inaan mushaar la siinin tan iyo sanadkii bishii December markii Muqdisho ay yimaadeen waxaana la sheegay in dawladdu aysan hayn dhaqaale mushaar ahaan loo siiyo saadartina dawladda ayaa contract heshiis la soo gashay dawladda Imaaraadka Carabta oo ay dhaqaale ku bixinayso dhalinyarta tababarka ku soo qaatay Eritrea mushaaraadkooda la siiyo madaxweynaha Soomaaliya afartii habeen ugu dambeysay ku hinayay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta waxaana la sheegay in xukuumadda Dubai uu weydiisanayay bixinta dhaqaalaha mushaaraadka Imaaraadka ayaana la sheegay ayagana inay ku bedelanayeen waxyaabo kale oo waaweyn oo ay qayb ka tahay in ciidankaas mushaaraadkooda bixinayaan inay noqdaan ciidamo Imaaraadka ay maamulaan go'aanadooda iyagu ay leeyihiin iyo madaxweynaha oo raba in ciidankaas ay noqdaan kuwa taliska militariga ay maamulaan waana qodobada ugu waaweyn ee la isku hayo madaxweyne Xasan safarkiisa Imaaraadka ayaa la qariyay faahfaahinta xogtan oo dhameystiran warkeena galab ayaan ku faahfaahin doonaa nabadgelyo